السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأولاشي الحليمة ويسوق السنيسي وحكستو لقنك Soomaali dhaqanka UK kala duwan. Maanta waxaan idin soo qaybsaa shoppingkeena oo UK. Taas suuqa ciyaalkii aboodka imaadeen. Anaka waxa waaye dukaamada way kala duwan yihiin. Maraan idin soo qaybto dukaamada oo Soomaalida oo shoppingka hilibka xalaal waaye. meelaha kalena waxa waaye xalaal maaha. Marka kuwa xalaalka Soomaali waaye, qaar Carab waaye, qaar Turkish waaye. Marka hilibka saan waaye bacdan camal oo ku jiraa. waa la kiileeha marka waa kana muddo lacagta inta lagu qoraa markaas meesha oo dukaanka marka hilib ari waaye hadda jeedi waan tusaa. hilibka isla markii haddii oo hilib oo si Soomaali camal eri oo qalahays oo isla markii oo laadiya waa fiicnaa leh inaan qabno, laakiin aniga eri nool ma qabno. eri nool waxa waaye difficult waaye si lagu helo. marka bacayaashaan ay kusoo raacsiihayaan inaa oo ku xiritid camal. waa kana hadda keli waaye, kan kelidan hadda kiila camal waaye, kiila waaye. bacdaana ku xirihid talaadiisi u gashid. intii waxaa isku mid dadka oo Sacuudiga insaan waaye. bacaal wuxuu xiraha talaadada la gashanaa sida oo maalin kasta oo yacni oo iskis loo isticmaalo. Soomaali camal maalin walba oo wax la aadayo maaha suuqa. oga hadda xataa iyaga naftirkoodna isbedeleen oo sida hore ay ahayn oo maalin walba suuqa la aadayo. laakiin waqtiga aniga oo Soomaali oo aan yareen maalin walba waxaan wada jiraa suuqa. hilib saan soo gad, jeeni saan soo gad, waxaa waa ordeen anakan waxa waaye wixii fresh aan keenayna. intana maxaa ku jiro, saajida mindiyaad isoo qabo hooyo. intana waxa waaye hilib shiishiid oo jeedina, hilib shiishiid waaye. intaan 2 kiilo camal waaye. أنا waxaan jeclaa week kasto, laakiin marmarka waxa iska soo waalahay baaba marmarka iska soo waalahay waxa iska soo gadaa wax badan. marka maalin kasta wuxuu jiidaa moota